mucjisooyinka biyaha marka aad maqasho waxa kugu soo dhacayo badda, wabiga, roobka iyo kuwa aan cabno maalin walba. Biyuhu waa laga maarmaanka nolosha. 70% jirkeena waa biyo, sidoo kale 70% dhulka aan ku noolnahay waa biyo. Allana quraankiisa waxa uu ku yiri waja'alna min al-maa'i kull shay'in hayyin afala yu'minuun. Fikradaheena, dareemaheena iyo ereyada aan ku hadlaynaba waxa ay ka samaysan yihiin moleculo biyo ah oo jirkeena ku jiro. Aqoonyahan u dhashay dalka Japan ee la yiraahdo Dr. Masuri Emoto mar uu baaris ku sameeyay dabeecadda biyaha ee uu booqasho ku tagay chemistry lab ku yaala jaamacadda Indonesia waxa uu yiri waxaan helay aqoon cusub. wax waliba waxaan ogaaday in ay nool yihiin xataa dhagaxa, sababtoo ah wax waliba waxa ay leeyihiin electron u dhaqaaqo bu'da xagga waxa nool. halkaas ayuu yiri Dr. Amos markii uu cilmi baaris sameeyay. halkaas markaan marayno cilmi baaris markii aan arkay waxaan soo xasuustay dhagixii nabiga la tasbiixsaday markii uu nabiga la tasbiixsaday kadibna uu ku wareejiyay Abu Bakar, kadibna uu ku wareejiyay Umar Allah kala noqdo dhamaantood. sidoo kale waxa uu soo dhacday aayada Quraanka oo ahayd wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. ahmiyada biyaha ay nool yihiin kuma eko cabitaan oo kali ah, laga soo bilaabo beeraha ilaa lagu geeyo in xataa koronto lagu dhaliyo. biyaha meel kasto ahmiyada nool yihiin. sidoo kale waxa la dhahaa biyuhu waxay ka baxsan yihiin xeerka fiisikiska. daraasado badan ee la sameeyay waxa lagu ogaaday cudurro badan ee la ildareyn aadanaha in ay keentay biyo la'aan ku dhacday unugyada jirka. gacmo dhaqashadana waxa la dhahaa waa habka ugu fiican ee qofka jirkiisa uga ilaalin karo in ay soo galaan jeermis. nabigana sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri midkiin hadii uu hurdada ka soo kaco yuusan gelin weelka gacanta ilaa uu dhaqo 3 jeer, sababtoo ah ma oo gacantiisa meeshii xaltaa. sidoo kale waxa la dhahaa biyuhu waxay awood u leeyihiin dilitaanka ilma qabatada aad u khatar badan. qaabkay u dilaan culimada sayniska waxay yiraahdeen ilma qabatada waxa ay xanibaan borotiinka ayagoo waliba biyaha isticmaalayo awood ku keensan. macnaha ilma qabatada la rabo in la dilo waxa laga xanibayaa bakteeriyada ay ku korisay. sidoo kale biyuhu waxa ay nasiyaan firfircooni iyo awood xataa anaga oo nacbil. waxa laga yaabaa qodobka in la yaabtid waa marka aan ku qubaysano biyaha jirkeena waxa ay ka galaan durdureelo yar ee maqaarka qofka uu leeyahay. waxay jirkeena ka galayaan durdureelo yar ee maqaarkeena uu leeyahay. taasina waxay keenaysaa in firfircooni aan ka qaadno, sidoo kale uu wanaagsanaado wareegga dhiigeena. cilmi baarisyo badan oo la sameeyay waxa lagu ogaaday dadka sida joogtada u weeseysto waliba sida fiican u sadaarsado waxa la lahaa waa kuwa ugu badan ee yar dhanka jeermiska. marka loo barbaariyo kuwa kale waa kuwa dadka ugu yar 100% ka maran. Assalaamu calaykum wa mahadsantiin.